si guud waxayna soo booqday hay-adda ayaana maamulkeedii iyo dhakhaatiir hay-adda ka socda si ay inoola wadaagaan arrimo ku saabsan caafimaadka iyo waxyaabaha la xidhiidha ayagaa maanta insha allahu tacaala marti inoo ah. toddobaadkii afraad ayaa waxaa gala dadaalada ay wado waaxda isku duwista arrimaha COVID-19 ee Jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Ameerika oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan IANA oo kaashanaysa waaxda caafimaadka gobolka Minnesota ayaa toddobaad walba maalinta Jimcaha waxay xog iyo agabyo loogu talagalay ka hortagga COVID-19 gaarsiisa inta badan masaajidada gobolka Minnesota. 3 masaajid oo ku yaala 3 magaalo oo ka tirsan gobolka Minnesota sida uu sharaxayo madaxa barnaamijka ka hortagga COVID-19 Cabdiqafaar Shire. maantay waxaa baxay 3 group oo ka tirsan waaxda isku duwista arrimaha COVID-19 ayaana oo u kala baxay 3 magaalo masaajidda 3 magaalo oo gobolka Minnesota ah. dabcan team aaday magaalada St. Cloud masaajidka Iqra Islamic Center kuwaasi oo markaasi isugu jiray dhakhaatiir iyo dad hawlwadeenada ayaana ah si ay markaasi dadka ula wadaagaan macluumaadka iyo xogaha la xiriira COVID-19 ayna uga qaybiyaan agabka loogu talagalay COVID-19 haday noqon lahayd mask ama qalabka afxirashada iyo sidoo kale gacmo nadiifiyaal ama hand sanitizers. sidoo kale koox kale oo labaad ayaa iyaguna waxay aadeen masaajidka Abu Hurayra Islamic Center ee ku yaala magaalada Rochester ee gobolka Minnesota iyagoo markaasi iyaguna halkaasi gaarsiinayay xog iyo agab loogu talagalay COVID-19 oo markaasi Jamciyadda Islaamiga Waqooyiga Mareykanka ay inta badan ugu talagashay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka. team aan anigu hogaaminayna waxay aadeen masaajidka Sunnah ee ku yaala magaalada St. Paul ee caasimadda gobolka Minnesota halkaasi oo aan isu raacnay Dr. Aadan Roble oo ah madaxweynaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee Mareykanka iyagoo halkaasi wacyigelin guud oo xanuunka COVID-19 iyo xaaladihii ugu dambeeyay xogaha la xiriira xanuunkaasi aan dadka la wadaagnay. sidoo kale Jamciyadda Islaamiga ayaa booqatay masaajidka Iqra ee ku yaala magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota halkaas oo xog iyo agabyo gaarsiiyeen koox uu hogaaminayay agaasimaha hay'adda fulinta Sheekh Xasan Dooyo. waxaan joognaa maanta markaska Iqra ee magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota. halkan waxaa soo gaaray Jamciyadda Ayaana Islamic Association of North America aniga dhakhaatiir iyo shaqaalaha xafiiska Ayaana qaybta COVID-19 iyo meediyaha Soomaaliyeed TV-ga qaranka. waxaan u nimid inaan barnaamijka aan wadnay wacyigelinta iyo in aan community-ga halkan jooga u keeno maskiga afka lagu xirto maadaama aad loo isticmaalo in la isticmaalana qasab ay tahay gobolkan qaalina uu yahay oo dad fara badan aysan heli karinin inaan maskigan qaybino. sidoo kale waxaan qaybinaynay hand sanitizer-ka ama alcohol gacmaha la marsado oo qofku markasta uu meel taabto inta uu jirkiisa taabanin maadaama uusan mar walba faradhaq ka gaarayn xanuunkana dhakhaatiirtu noo sheegeen in lagu kala qaado istaabashada iyo xanuunku meeluu gaaray oo qofku taabto iyo isa salaanta iyo isu dhawaanshaha inaan la wadaagno. waxaan kale oo community-ga halkan jooga la wadaagnay xafiiska Ayaana waaxda ka shaqeysa COVID-19 community coordinator oo u dhaxaysa waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota iyo mujtamaca Soomaaliyeed xafiiskeena qaybta qaabilsan COVID-19 oo u dhaxaysa resource-ka aanu hayno iyo xogta aanu hayno macluumaadka in aan la wadaagno oo waxyaabaha xafiiskeenu qabto sida inaan resource qaybino ama agabka COVID-19 loogu talagalay inuu jiro number ay soo wici karaan haddii rabaa inay isbaaraan meelaha iska baarayaan. talaalka ayaa soo socda iyadoo kale macluumaad talaal ku saabsan haddii ay u baahan yihiin dhakhaatiirta iyo qaabkii ay ula xiriiri lahaayeen baahida mujtamaca Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee ku aadan xanuunka coronavirus inaan la wadaagno oo u sahlo oo u fududeyno. sidoo kale inaan dadka laftigooda wacdino oo khudbadii kale waxaan kaga hadlay anigu ducada iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala in la isku xiro iyo tala saarashada Ilaahay iyo ahmiyada ay leedahay. Dr. Maxamed Khadar Maxamed wuxuu ka mid yahay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa waftigii uu hogaaminayay agaasimaha fulinta Sheekh Xasan Dooye ee booqday masaajidka Iqra ee ku yaala magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota si ay uga wacyigeliyaan bulshada xanuunka COVID-19 waxaana hadaladiisii ka mid ahaa saaka update-ka ugu dambeeyay wuxuu ahaa 367,218 waa saaka kaliya oo gobolka Minnesota oo dhan. gobolka Minnesota marka wuxuu ka mid yahay gobolada ugu waaweyn ee ay aafadan iyo aafaysa.
si aan markaa usoo koobo hadaladayda waxaan isku dayay inaan fahan yaroo kooban ka qaadano covid waxa uu yahay. Covid waa viruskaas waxaa keena oo abuura virus la yidhaahdo SARS oo originally kasoo jeeda xayawaanaadka ayaa abuura. Viruskaas ayaa sameeya COVID-19. Markii ugu horeysay COVID-19 waxaa lagu arkay dalka China magaalada Wuhan. Dhakhaatiirtu say caddaynayaan waxaa jirtay muddo inuu qarsoonaa, waana sababta keentay inta badan inuu adduunka oo dhan ku faafo. Viruska COVID-19 marka ugu horeysa oo qofka ku dhaco wuxuu leeyahay calaamado. Dadku labay u qaybsamaan, qayb calaamaday arkaan, qaybna wax calaamadaba ma arkaan. Marka waxay ku xidhan tahay age-ka iyo immunity-ga qofka uu haysto, yacni difaaca jirkiisa. Tirada u dhaxaysa 15 ilaa iyo 45 inta badan waxaa la dhahaa waa dadka aan calaamadaha lahayn. 45 ilaa iyo 95 markaad gaadhsiiso ama 100 gaadhsii waa dadka inta badan calaamadaha yeesha. Cudurkan cid kasta wuu ku dhacaa, hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahayba. Laakiin maxay ku kala duwan yihiin? Dadka immunity-goodu yara roon yahay waxaa laga yaabaa inay muddo survive gareeyaan. Cudurka maha waxaa dila, laakiin cudurku wuxuu la dagaalamaa difaaca jirka bini'aadamka. Virusku marka uu la dagaalamo difaaca jirka bini'aadamka ee qofkii uu liito oo difaaciisii yaraado, markaa kadib hargabka ku dili karaa because jirkaaga difaac ma haysto. Calaamadaha ugu waaweyn marka la isku arko waxa weeye qofku inuu dareemo daal fara badan, qufac, xumad, maxaa la yiraahdaa sometimes inuu qofku matag ama shuban dareemo. Dadka waaweyn buuna inta badan u daran yahay, iyo dadka la nool cudurrada sida dhiigkarka, macaanka, beer subaga, waxyaabaha la midka ah. Dadkaas uu sii daran yahay. Dhakhaatiirtu hadda waxay isku raacsan yihiin intii kale waa la soo research baa lagu sameeyay, dabagal fiican baa jira, laakiin 15 ilaa 45 oo ah dadka yacni aan calaamadaha lahayn weeye dhibaatada ugu faraha badan hadda. Because wiilkii uu soo baxayaa, meel dad badan iskugu yimaadeen buu imaanayaa, maanta oo dhan wuu sheekaynayaa, waxaa laga yaabaa inuu gurigu ku laabto. Aabihii ama hooyadii ama walaalihii oo laga yaabo inay ama dhiigkar qabaan ama macaan qabaan ayuu u tagayaa. Kuwaas ayaa laga yaabaa inuu effect ka soo gaadho. Dhimashada hadda saaka inta aan ognahay 276,767 ayaan saaka daatada ugu dambeysay ee wasaaradda caafimaadka aan arkaynay. Dadka inta badan uu u sii badan yahayna waa dadka community-ga isla nool, yacni Soomaalida sidaynu ognahayba waa dad hal meel ku wada nool oo yacni inta badan iska warhaya. Dhan marka laga fiiriyo way fiican tahay, dhan marka laga fiiriyana way isu qariyaan cudurka. Marka si aad walaalkaa u ilaaliso, naftaada u ilaaliso, waa inaad adigu horta iska bilowdaad adigu is ilaalisaa. Qaar ka mid ah dadka ayaa soo dhaweeyay ololaha looga hortagayo xanuunka COVID-19. magacayga waa Cabdinuur Xasan Rashiid, waxay ii yaqaanaan dadka Cabdinuur Bashaash, imaamka masaajidka markaska Iqra ee magaalada St. Cloud. runtii magaaladan waa magaalo weyn weeye, waxaa lagu qiyaasaa ilaa 12,000 oo dad Soomaaliya inay ku nool yihiin. ay masaajidda iyo maraakiista islaamiga ana ay yihiin meesha ugu muhiimsan ee bulshadu ay u soo laabato wax walba ka caawiya. waxaan marka maanta ku faraxsanahay inayna soo booqdeen hay'adda Ayaana oo Sheekh Xasan Dhooye uu matalayo gudoomiyaha fulinta ah iyo Dr. Maxamed oo ka socday midowga dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee gobolka Mareykanka ayagoo wacyigelin bulshada ugu socday. aad baa looga faa'iiday labadii khudbadood baa wacyigelin bay sameeyeen, bulshaduna aad bay u daneynaysay waxyaabihii ay ka hadleen. waana rajaynaynaa marar kale inay maxaan ku idhahdaa inoo soo noqon doonaan. aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaan. waxaan aad u bogaadinayaa dhammaan dhalinyarada isxilqaantay, dhakhaatiirta, warbaahinta qaranka,
oo ummadeenna wacyigelinta iyo qiimaha badan ee aad u soo jeediseen gaar ahaan magaaladeena aad maanta nagu soo boqoteen ku soo dhawaada waad mahadsantihiin intaa iyo in ka badan baanu idinla shaqaynaynaa sida aad bulshada aad ula shaqaynaysaan ood wanaagga u faraysaanna ilaahay ha idinku guuleeyo waadna mahadsantihiin magacaygu waa Khadar Ibrahim Xasan oo ku nool gobolka Minnesota khaasatan magaalada St. Cloud aad baan u bogoodinayaa maanta inayna soo booqatay idaacadda qaranka Soomaaliyeed iyagoo meeshan u imaaday inay bulshada wacyigeliyaan kana wacyigeliyaan dhibaatada uu leeyahay xanuunka sidoo kale waxaan bogaadinayaa culimadeena maanta maalin jimcaha in masaajidka sidoo kale aad looga hadlayay macnaha xanuunkan iyo macnaha dhibaatooyinka uu leeyahay marka macnaha culimada iyo TV-ga iyo dhammaan macnaha wanaagga ay wadaan iyo bulshada wax shaqada ay u hayaanba bulshada shaqada ay u hayaanba aad baan ugu dhiirigelinaynaa waxaan u mahadcelinayaa idaacadda qaranka Soomaaliyeed iyo hay'adda iyana oo culimada Soomaaliyeed ay ka kooban yihiin iyo dhaqaatiirta oo marka mar walba uga digayo dhibaatada uu dadku ku hayo COVID-19 marka waana ognahay dhibaatada dadku COVID-19 uu ka hayo dad badan ayaa u dhinteen dad badan ayaa marka xanuun badan la maray marka shaqo wacan ayaa haysin anakana marka waxaan ugu habboon ama dadka waxaan rabaa in dadka ay kana wacyigelinta ku badno dhinacna ka badno oo dadka aan ugu digno xanuunkan dhibaatada dadku ku keenay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Yuusuf Samatar waxaan ku noolahay magaalada St. Cloud waxaan halkan kaga mahadcelinayaa TV-gan oo Somali National TV waxaan mar labaad u sii mahadcelinayaa culimadayna iyo dhaqaatiirta magaalada nagu nool anigoo ah Bahda Nation Barber Shop timajaraha magaalada ah waxaan sameynaa haircut xilliga aan ku jirno waxaa jiro xanuuno maadaama xanuuno ay jiraan qaybta wajiga ma qabanno waxaan qabanaa madaxa oo kaliya qofka marka uu jarayno waxaa sharuud ah in uu maaska xiran yahay kadib ayaan u shaqay karnaa waxaa loo baahan yahay oo kaleento in ay jirto 6 feet wax la yiraahdo social distance waxaan u ogolnaa meheradeyna 3 qof oo kaliya waxaan ku shaqaynaa appointment toddobaadyadii tagay ayay iyana xogo caafimaad iyo agab COVID-19 looga hortagaya gaarsiisay masaajidda dhowr oo ay ka mid yihiin Abubakar Sadiiq oo ku yaala magaalada Minneapolis masaajidka El Ihsan oo ku yaala magaalada St. Paul ee magaalada madaxda gobolka Minnesota Darul Salam oo ku yaala magaalada Brownsville Darul Faruq oo ku yaala magaalada Bloomington Darul Iman oo ku yaala magaalada madaxda gobolka Minnesota ee St. Paul Minnesota ayaa ka mid ah gobolada sida aadka ah ula tacaalaya xanuunka coronavirus iyadoo waaxda caafimaadka gobolka Minnesota ee loo yaqaan MDH ay shaacisay ku dhawaad 4,500 oo qof oo dheeri ah kuwaas oo sababay dhimashada 67 ruux in ka badan 375,000 oo reer Minnesota ah ayaa uu ku dhacay xanuunka COVID-19 dadka ugu badan xanuunkan oo soo ritay ayaa ah dadka da'doodu u dhaxaysa 20 ilaa 29 balse dadka ugu badan ee xanuunkan u geeriyooday ayaa ah dadka ay da'doodu u dhaxayso 85 ilaa 89 dhimashada duqeyda ayaa gaaraysa in ka badan 800 oo qof degmada Hannibin oo halka ay Soomaalida ugu badan kaga nooshahay gobolka Minnesota ayaa ah goobta ugu badan oo uu saameeyay xanuunka COVID-19 waxayna kiiskeedu gaarayaan in ka badan 78,020 halka dhimashaduna ay tahay 1,231 qof waxaana soo raaca degmooyinka Ramsey County Dakota iyo Anoka oo gobolka Minnesota ka wada tirsan yaaqada sanadkan iyo bilowga sanadkan 2020 ilaa 2021 ayaa la qorsheynayaa in la bilaabo bixinta talaalka COVID-19 oo ka kooban 2 doos talaalka oo ah mid bilaash ah ayaa waxa lagu bilaabi doonaa dad gaaraya 183,000 si loo hakiyo faafidda iyo dhimashada xanuunka COVID-19 laakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka